asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaantiin soo dhowaada asxaabteena daawadayaasha qiimaha leh. halkan aad arkaysaan waa xeeb aan ku soconno, islamarkaasina inaan gaarno halkaasi aan rabno. haddaba waxaad xeebtaasi ku arki doontaa waxyaabo aad u cajiib leh oo aad u qurux badan, oo ay ka mid tahay bal sida ay nadiif u tahay iyo sida ay waxaan eegaynaa yihiin guryaha ku yaala iyo hoteelada iyo sida bilicdeeda tahay. dadweyne aad u qurux badan ayaa mar waliba ku sugan xeebta, inkastoo aad arkaysi kuwa kala gedisan, ajanabi ah, kuwa Soomaaliya iyo kuwa aad iyo aad islamarkaasi u jecel inay dalxiisaan, islamar ahaantaana ay waqti qaataan xeebta ayagoo wareegaya. islamarkaasina goobaha xeebaha adduunka waa qeybaha ugu muhiimsan nolosha. wadankan xeeb lahaynna wax badan ayaa ka maqan, ama landlord wadankii ah wax badan ayaa ka maqan. taasi oo markaad xeeb leedahay aad u dheer badan, misna aad dalxiise ama lacag aada ka sameynin, ayadana ay niyad jab aad u weyn leedahay, balse wax waliba nabadda ayaa ka akiba. halkani waxaa jooga saaxiibkayga Cabdifataax Jante oo islamarkaasi hawo qaadanaya, oo islamarkaasi laftirkiisa aan ka marnayn dalxiiska, oo weliba aad iyo aad intuu surwaal gaaban u gashtay saaxiibkayga oo u raaxaysanaya. hore u socayaan ku leeyahay maasha Allah. waxay ahayd waqti qurux badan, galab aad u wanaagsan, islamarkaasina qoraxda ay sii dhacayso. markaas ay ku macaan tahay markay qoraxda sii dhacayso inaad sawirro iska qaado, islamarkaasina haddii aad vlogger tahay ama videoyo samaysana ay aad u qurux badan tahay. waa tahay halkani waa guryo iib ah, islamarkaasina guryahani waxa ay aad ugu dhow yihiin xeebta, ayagoo u jiro wax aan ka badnayn 200 oo tilaabo oo kaliya. halkani waa hoteelka aan ku sugnayn, inkastoo swimming pool uu lahaa, isna swimming poolka meel walba uu ku yaala ayaan ku dawaalan jiray, laakiin ma xiiseeninba markaan halkan joogay ama hoteelkan aan joogay. waxa aan aad uga jeclaa ayaa waxay ahayd inaan ku dawaasho badda, oo weliba aan aad u qiimeynayay ama xeebta, waayo jirkeena mar waliba wuxuu doonayaa haddii aad biyaha cusbada leh ku qubaysato, waxyaabo kaleeto ayuu jirkaaga uu helayaa, fitamiino kala gedisan ah. halkani waa marka aad viewga iska qaadanayso ama aragtida iska qaadanayso, xeebta daawanayso, aad ku nasanayso, haddaad ku qadanayso, ku quracanayso, ama aad cabitaan ku cabayso oo aad iska fadhido, oo si aad u qurux badan u diyaarsan, islamarkaasina leyr aad u macaan leh, inkastoo goobaha xeebaha yihiin goobaha ugu kulul. waata waxaan tusi doonaa hoteelkayga meel kamid ah oo islamarkaasi halka loo yaqaano member ama loo yaqaano masraxa lagala hadlo markay yimaadaan dadka caanka ah. sida la ii sheegay, dadka caanka ah ee halkan shacabka kala hadlay xeebta ku sugnaa waxaa ka mid ahayd aktarada caanka ee la yaqaano Paris Hilton, iyo dad kaleeto aad u fara badan oo kaleeto oo mas-uuliyiin dowladeed ah, oo iyo dad kaleeto aad u fara badan oo ayagana la ii sheegay inay dadweynaha ay kala hadleen halka ay istaageen. bal aan isla aragno meesha memberka aan ii sheegayo. markay dadweynaha xeebta ku sugan qof caan ah ay arkaan inuu hoteelka degan yahay ama halkaas ka hadlayaan, waa tahay goobtaas ayaan jeclaystay inaan soo tuso, bal idinkana na soo raaca oo indhihiina ku soo arka. marnaba kama daalayno inaan waxyaabaha aadka u muhiimka aan ku soo tuso, waayo waxaa tahay daawadayga ugu qiimaha badan. adna like-ta iyo share-ta iyo asxaabtaada inaad gaarsiiso, nagu dhiirigeli, annagana nagu hadlay wax qurux badan oo mar walba gurigaaga sariirtaada adoo saaran inaad nala daawato. waa halkan memberka. markuu qofka halkan istaago, wuxuu dadweynaha xeebta jooga iyo kuwa hoteelka jooga barxadiisaba, hadday tahay dad is-aroosay oo kale, haddii kale halkan ayuu kala hadlaa. waa goobta ay istaagtay Paris Hilton, halkaas ayayna dadkeeda kala hadashay. waa tahay inta badan hoos ayaan u degi doonaa, annagoo sii tusi doono sida marka aad rabto inaad dadka gacan qaado ama arooska iyo aroosada ay soo degaan halka ay ka soo degi lahayn. halkan ayay soo maraan, kabacdina hoostaas ayay soo degaan oo barxadda ay ku taalo. halkaas ayayna kula caweeyaan, waqtigana kula qaataan, dadka iyo asxaabtaba inta ay kula qaataan. marka waxaad arkaysaan waa quruxda iyo bilicda goobtaan ku sugnayn, islamarkaasina aan deganayn. waa tahay bal aan markayga anoo hadalkanii wada kaamirada dhinacayga u soo wareejiyo mar qura, islamarkaasina anigoo sii dhex qaadaya isla hoteelka laftirkiisa iyo bilicdiisa iyo quruxdiisaba. waxaa aad kuu qancinaya ama kuu soo jiidanaya ayaa waxay tahay salaamada ama waxa loo yaqaano landscape-ka ama biyo dhacyadada loo sameeyay hoteelka, haddii ay tahay
geedaha lagu dhex abuuray mar waliba oo meesha u samayso biyo dhacyo aad u qurux badan sidaan oo kaleeta ah waxay ka qayb qaadanaysaa soo jiidashada indhaha markuu soo galayo qofka hoteelka ama inuu dego uu rabo intuuna xafiiska soo gaarin ka hor ka samee meelo aad u qurux badan si xafiiskaaga qofka markuu imaado uu ugu qanco inuu hoteelka dego waxayna ka mid tahay qayb ganacsiga ka mid ah mar waliba waxaad ogaataa inay magaalada gudaheeda hotel aad ka dhisto ay ka wanaagsan tahay magaalada banaankeeda hotelka aad ka dhisto waayo dadku waxay doonayaan hawo fresh inay qaataan buuqiisa waxaan meel lahayn ay maskaxdoodana ku degsadaan waa tahay xeebtii ayaan ka dhammaanay xeeb kale ayaan sii aadnay taasi oo inta badan haddii aad tiraahdo waa u lugeynaya uu gobolka kaa dhici karo balse annaga waxaan go'aansanay inaan ku tagno doon mar kaleeta haddana aan hore usii qaadanay waa tahay ka soco laba saar waad aragtaan xeebtii kale aan nimid aad ayay u qurux badan tahay laftirkeeda kama liidata tii hore aan joognay dadweyne aad fara badan ayaa ku sugnaa way shidnayd aad ayayna u wanaagsaneyd laftirkeeda waxayna ahayd qayb aad u qurux badan oo isla markaasina dad badan oo kala gedisan ay ku dabaalanayaan indhahaagana soo jeedanaysa shacabka iyo siday raxan ugu socdaan iyo famil iyo asxaab iyo kuwa meesha isku baranaya kama marna laftirkooda oo ku daara ayaa ka jirta inta dib u kulmayno waa anigoona